بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in aniga iyo wafdigeygii aan nabad nimid New York si aan uga qayb galno shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay aniga iyo wafdiga waxaa halkan si diiran ugu soo dhaweeyay safiirkeena iyo shaqaalaha safaaradda waan runtii aad ugu mahadcelinayna shaqo wanaagsan halkan ka qabtay shirkani waa muhiim ayuu u yahay dawladnimada Soomaaliyeed waxaanu nimid inaan ka qayb galno shirka shirar badan oo gooni ahna aan galno annagoo ka dhaadhicinayna adduunyada in Soomaaliya ay joogto waqtigii la garab istaagi lahay in dadka Soomaaliyeed ay u soo jeesteen dawladnimada in Soomaaliya ay tahay Soomaaliya cusub oo hore u socotay maanta waxay ahayd maalintii ugu horeysay shirka ugu horeeyay waxaan la qaadanay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka maalmaha soo socdana waxaan geli doonaa shirar badan rajab badan ayaa jirta shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo u soo duceynayaa waxaan u soo noqon doonaa hadii Ilaahay raado marka uu shirku noo dhamaado